qofku haddii aanu hadaf lahayn wax aanu tiigsanayn qofka noocaasa meel gaadhi maayo raaxamarku waxay yidhaahdaan waa jugjug halkaaga joog jugjug halkaaga joog waxa weeye nasmacu jacjacatan walaa naraa taxnanna way yidhahdaan carabtu sanqadh baanu maqlaynaa wax la shiidayana arki mayno waxbay ku shiidi jireen sanqadha darasaa la isugu garaacayo ayay qamadidaya waxaa ku shiidanaya marka haddaanay qamadi ku jirin sanqadh baa baxaysa wax la shiidayaana ka soo bixi maayaan waa jugjug halkaaga joog wey markaa qofku waa wareegayaa waa ordayaa inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan kale ogaan maayo waayo markuu hadaf leeyahay ama taargad leeyahay ayuu isqiimaynayaa ma guulaysan mise ma guulaysan alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahda am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim miyay siman yihiin mid ku soconaya isagoo fooraro madax u soconaya ibnu kathiiriya waxay leeyihiin meeluu u socdo garan maayo meeluu u socdo ma yaqaan wuxuu ku soconaya isagoo fooraro madax buu u soconaya iyo man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim iyo ka isagoo lugihiisa ku taagan oo qumaati u taagan waddo toosan haya oo arkaya halka uu u socdo ay waxa weeye u muuqato waxay yidhaahdeen ka soo qaad adoo waddada maraya ayaa qof waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa waddada inaad itilmaanto itilmaan waxaad tidhi waa ku tilmaamaya xaggaad u socotaa xaggee baad kusii socotaa si aan kuu tilmaamo ma suuqii baad ku socotaa ma xaafada heblaad ku socotaa wuxuu ihi garan maayo meelaan u socday itilmaan miyaa loo tilmaami karaa waxba looma tilmaami karo waa qof aan socon wey mar haddaanu hadaf iyo taargad lahayn maxaa keena qofku inaanu yool iyo taargad yeelan sababaa keena sababaha waxaa ka mid ah qofku inuu u maleeyo ama uu isku qanciyo in yool la yeeshaa wax faa'iidaa inaanay lahayn yool in la yeeshaa inaanay faa'iido lahayn dadka qaar waxaana yool u yeelan iyo hadaf iyo taargad waddadii hadafka loo samayn lahaa ma yaqaan maxaa u dana muxuu haystaa maxaa ka maqan maxaad u baahan tahay maxay dantaada adduunya aakhira ku jirtaa ta noocaasaanu cilmigeed ahayn dadka qaar ka mida wuxuu isu arkaa inaanu istaahilin yool inuu yeesho uu iskala hooseeya waar dadka tegay ee aqoon-yahanka ah baa ka hadla qorshe iyo balayn iyo taargad iyo wax la tiigsaday iyo annagu calalbarakaanu iskaga soconnaa jaantaa rogan weeye xaalka yagu inuu hoos isu dhigo dadka qaar wuxuu jecel yahay bakhtiyaa nasiib wuxuu leeyahay haddaan taargad yeesho waxaan ka baqayaa inaan gaadhi waayo haddaan gaadhi waayona waan fashilmay mana doonaya inaan fashilmo ninka taargad kale ee fashilmay waddadaa uu ku fashilmay buu ka baydhayaa guul buu gaadhaya intuu sidaa ku socdo laakiin kani weligiiba fashal buu ku jiraa waayo guulo badan oo uu gaadhi lahaa ayaanu tiigsanayn mar haddaanu hadaf ka dhigan ama yool ka dhigan qaybta ugu dambaysa ee dadka ka baajisa inay yool yeeshaan waa dad u malaynaya yool hadduu samaysto cidhiidhi inuu gelayo raaxadu inay ka tegayso wuxuu leeyahay nolosha macaankaa ka tegaya markuu wakhtigiisa qorsheeyo ee uu yidhaahdo waxaan doonayaa bishan socota ama sanadkan 2020 inta ka hadhay waxaan doonayaa 10 juz oo quraana inaan xifdiyo waxay uga baahan tahay waqti inuu sameeyo
mar walba wuu walwalayaa maalintii intii loo baahnayd ma xifdiday isbuuca intii loo baahnaa ma xifdiday bisha intii loo baahnaa xisaab bay waxay ku socdaan marka qoful xisaab isla daba taagan oo aan nasanayn oo walwalsan xalay intii la doonaya ma dhammays cidhiidhigaasuu diidaya wuxuu doonayaa maalin walba inuu in yar iska xifdiyo 30 sano ha ku qaadato ama waxa weeye halkiisa ha iska joogo inuu maalin walba intii uu awoodo uu iska dhaqaajiyo doonaya kaasina ma guulaysanayo qatcan waayo wuxuu isu haystaa in yar hadduu qabtaba inuu guulaystay ka la midka nidaamsaday waqtigiisa yoolka samaystay waxaa laga yaabaa muddo kooban inuu hadafkaa ku gaadho kanina weligiiba inuu leeyahay waddadii baan hayaa meel fiican baan marayaa iyadoo laga yaabo meeshaa meel ka wanaagsan muddo ka kooban inuu ku gaadhi lahaa dadku waxay u qaybsamaan markaynu yoolka ka hadlayna qaybo dadka qaar yool buu samaystay ficilkiina waa ku daray yoolkiina waa gaadhay ama waddadiisibuu hayaa ficilkiina waa wadaa waa ka ugu wanaagsan wey yoolkiisu waa u muuqdaa ficilkiina waa ku dhaqaajiyey ama ha gaadho ama waddadii ha hayo waa qof guulaystay qaybta labaad waa qof yool iyo taargad samaystay uu tiigsanayo laakiin ka caajisay ficil la-aan ku darin marka la weydiiyo yoolkaagu muxuu yahay waa sheegayaa laakiin camalkeeda iyo shaqadeeda iyo tacabkeeda ma hayo nooca saddexaad yool lama leh camal lama leh waa ka ugu liita wey wuxuu leeyahy ibnu lqayim raximah llahu tacaala markuu macnaynaya qowl llahi jala wacala liman shaaa minkum an yataqadama aw yataahar waxa uu ihi bini aadamku xaalkiisu meel ku sugnaan maayo laysa fi shariica wala fi abiica tawaqufun albatta ima taqadumun wa ima taahur liman shaaa minkum an yataqadam aw yataahar nolosha waxaa laga ogaaday buuri sharciga allana laga ogaaday qofku xaal keliya inaanu ku sugnaanayn ama horuu u socdaa ama dib buu u soconaya horuu u soconaya waxbuu ziyaadsanaya diin ama adduunyo cilmi ama cibaado khayr baa u ziyaadaya horuu u socdaa ama dib buu u socdaa qofkaan hadafka lahayn hadduu xitaa meel fiican xaalkiisu uu joogo jamaca masjidkana waa la tukanaya masaariiftiisina waa isugu toosan tahay haddaanu hore usii socon oo salaadii faralka ahayd salaatuleyl iyo sunnayaal iyo duxa iyo aanu hore usii socon marka dambe faralkiibaa halis gelaya xaggii adduunyada maanta haddii $500 uu qaatay si fiican ugu filan tahay bari markay 10 ciyaalku 10 ku noqdaan maciishadiina ay isbedesho ku filan mayso hadduu halkiisa iska taagnaado culays baa soo wajahaya idan qofku hadduu halkiisa taagan yahay diin ama adduunyo dibdhac ayuu ku jiraa hoos u socod ayuu waxa weeye ku jiraa qadiyadaasi waa muhim yoolkaagu muxuu yahay hadafkaagu muxuu yahay maxaad doonaysaa inaad xaqiijiso ma waxaad tahay qof caadiya mise waxaad tahay qof aan caadi ahayn ma qof guulaystay baa tahay mise qof khasaaro nolosha ka dhacay qof caadiya waa qofka dee ummadda muslimkaa ka mida u dhashay see dadku ay u dhashaan wuxuu u koray see dadku u koraan wuxuu wax u bartay see dadku wax u bartaan shaquu helay see dadku u shaqeeyaan shaqo caadiya xaas buu yeeshay nolol xaasoo caadiya ubad buu dhalay caadiya markii dambena sida dadka caadiga abaa loo aasay waxay yidhaahdeen nolol kasta oo ay soo gebagabayso geeridu
nolol xaqiiqiya maaha, waa nolol naaqisa oo hadda khayr badan oo aynu arkayno dad baa ka tegay, hadday masaajida tahay, hadday madaaris tahay, hadday cilmi tahay iyo aqoon, khayr kala duwan oo badan dad baa ka tegay, weli waynu xusnaa. nawowi soo lama wada yaqaano, imaamu nawowi 40 nawawiy, 100 sano ka hor buu dhintay, ubad kama tegin, laakiin wuxuu ka tegay ummadda muslimka oo dhan, Indonesia iyo muslimka soo islaamay Maraykan jooga, ka Soomaaliya jooga, ka Afrika jooga, mid waliba markuu diinta bilaabaya 40 nawawiy ka bilaaba. qaala an-nawawiy rahimahullah buu ka bilaabay, mid waliba waa yaqaana waana u ducaynay. riyaad saalixiin ka yada hadalkeeda cilmiyadiisa kale waa ina la noli laxdada aan hadlayo boqolaal masjid baa laga hadal hayaa dunida daafaheeda oo looga ducaynayo. inta media la soo galiyay ee la duubay la dhageysanayo, guryaha lagu dhageysanayo hadalkeeda daa nolol buu ka tegay, laakiin waa nolol aad u weyn u soconaysa. laakiin mid adiga kugu filan intaad awoodayso raad inaad ka tagto waa wax aad iyo aad u muhiima. raadkaas ama cilmi buu noqonaya, ama adduunyuu noqonaya, ama waxtar kaluu noqonaya, ama wejigaagii oo aad ummadda wax ugu qabatay bay noqonaysaa. markay ugu liidato sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qof ummaddu ay ka nabad gashay oo dhaqan wanaagsanaa oo tusaale wanaagsan dadka u ah oo ka tilmaaman xaafadda oo lagu daydo lafteedu waxa weeye ka darimayso. waxaan uga jeedaa qofku hadaf inuu yeesho aad iyo aad bay muhiim u tahay.